fatahaad ayaa ah mid sanad walba soo laabata rafaadna ku qabaan dadka dega degmooyinka Qalaafe, Mustaxiil iyo Fiirfiir ee ka tirsan gobolka Shabeelle ee deegaanka Soomaalida. Wixii badar ahay waxaan maanta anshansanayni wax aan faro ku hayna mal. Haddaba shacabka degmada Mustaxiil waxa ku dhacay fatahaad ka soo kabashadeedu ay adag tahay 4,000 oo qoys ayaa ku go'doonsan iyo 15,000 oo neef oo xoolo ah. Dhammaan dadka ay saameysay wadartoodu waa 14,000 oo qoys meesha ay ka barakaceen guryahoodina ka tageen 10,000 oo qoys. Xukuumadda ayaa sheegaysa inay ka jawaab celin doonto iyadoo gaarsiisay raashin noocyadiisa kala duwan. Dadaallada ay ugu jirto siday dadka barakacayaasha ah iyo kuwa ku go'doonsanba ay uga gaashaaman lahaayeen fatahaadan. meel aan joogsana garan la'aan xoolo iyo dad intay ka dhaxlaba bilcaankaal iyo marqasan ku dhex jirna antan meel fadhiisan la'aan wili aan raaraha biyaha looga dhex yaalan guryooda meel aan ka joogsana la'aan fatahaad ma tiraayo meel oo hataa dab ku shidana garan la'aan wax aan haysan mal beerkaan beer loo muuli xoolo ma haysan qaarkaan dadaa waxaasta dadka rafaad iyo dhibaato kala goynaysa inana la soo badaan rabna waaba noo soo bilaw dawlad waa u baahanay waa bari aad aan baa uga faraxin saas ka darno waa rabna magacaygu waxa la yiraahdaa Guuro Diiri Cumar anigoo ka tirsan degmada Mustaxiil qabalaha Mirdhis wax alla wixii badar ahay waxaan maanta anshansanayni wax aan faro ku hayna malaha xoolaha qaarkood biyahaas ay ku go'toomeen badda way raaceen webiga ay raaceen oo meel qansax la yiraahdo ay aga shubeen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa rasuulkiisa aan ka rabnaa dawlad deegaanka iyo golaha federaalka ina sida ugu dhaqsiyaha badan gargaarka noolu soo keeno maanta noolu soo bilaab in si dhaqsiyaha noolu soo saaciido oo noolu keena dawladda ka cuseenayna hooy ma haysano waad aragtaan waxba idinka ma sheekeynayno biyihii baan dhex taaganahay xoogooga noola keenay waxa noola soo gaari noolu soo saaciido ma fadhina meeshan kuna sakaliima ama qablaha Mirdhis waa kala baxay magacaygu waxa la dhahaa Mogool Garaad Xirsi qabalahan ka soo baxnay waa qablaha Mirdhis oo fatahaada fara badan inagu qabsadeen dhibaatooyin inagu qabsadeen alaabadii naga raacday ilmihii naga dhibaatoodeen marka hadaa ilaahay yiraahdo banaankan cidlaan iska degan haddana way noo soo bilaabatay caawintii koobaad maanta way noo imaatay wax waliba waa baahnay waxan cuno waxan guriyo ku dhisano wax waliba waa u baahanay aadan u dhibaataysanayba magacaygu waa Axmed Cismaan waa gudoomiye ku-xigeenka degmada Mustaxiil goobtan hadda aan ku sugannahay waa qabalaha saddex baar waxaan ka soo badbaadinay qabaloosaadkiisa Imaan Ciis dad gaariya 300 oo qoys oo maalmahan ku go'doonsanaa goobtaas dadkaas oo iskugu jiray dad waayeelo ah dad curyaamo ah dad aan awoodin inay macnaha biyaha ay maraan dadkaas waa waxay leeyihiin 300 oo qoys taas oo lagu soo sameeyay bixiyay helicopter-ta hadda inoo muuqato ilaa 3 cisho ayaan soo dadgureynay waxaan ku guuleysanay inaan dadka ka soo badbaadino fatahaadii webiga Shabeelle ee ka dhacday degmada Mustaxiil qaasatan qabalaha saddex baar qabaloosaadkiisa Imaan Ciis waxaan mahad u celinaynaa dawladda federaalka iyo dawladda deegaanka Soomaalida oo gurmad adag nala soo gaaray oo helicopter iyo raashin dadka la soo gaaray ayaan mahadda iskalan u mahad celinaa ilaahay ka sukow madaxa xafiiska masiibooyinka Cabdiqadar Ismaaciil oo warbixin nagu siiyay santarka saddex baar ee degmada Mustaxiil ayaa sheegay in aysan jirin wax dhimasho ah waxaan soo gaarsiinay dadkan oo diyaaradda ku soo gaarsiinay 290 haaf oo bariisa iyo 300 oo qoys alaabtoodii oo partial kitka waxa loo yaqaan ayaan soo gaarsiinay 290 ka haaf Mirdhis iyo qabalaha saddex baar labada ayaan u kala qaybinaynaa berrina insha Allah waxaan ka shaqayn doonaa saddex qabale oo degmada Qalaafe hoos tagta oo sidaas oo kale dad ay ku go'doonsan yihiin ayaan raashin iyo alaab u geyn doonaa insha Allah ta'ala sidoo kale wuxuu sheegay in xoogga la saarayo 4,000 qoys iyo 15,000 neef ee hadda waqti xaadirkan ku go'doonsan degmada Mustaxiil Maxamuud Cabdi Xaashi Home Cable TV degmada Mustaxiil ee gobolka Shabeelle magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo war ma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2,500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2,500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel
shirkadda dadweynaha